hadda waxay la taagan Khalid Aadan Maxamed oo ah agaasimo ku-xigeenka waaxda qurbo joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo annagoo ku sugan hotel Siris Rafford oo ay ku dhacayo xafladda ama munaasabadda wiiga qurbo joogta Somaliland in Khalid soo dhaw TV qaranka Somaliland in xafladdan munaasabadan shirka qurbo joogta Somaliland in idinka xafiis ahaan muxuu idin la macneeyay walaal aad baad maasatahay adiga iyo telefishinka qaranku aad baad maasantihiin runtii xafladdan anaga waxay noo tahay door weyn bay nooga dhigan tahay wax aad u weyn bay nooga dhigan tahay waayo waxaan muddo ka shaqaynaynay ama aan hirgelintiisa ku hawlanayn inuu hirgalo shirweynaha toddobaadka qurbo joogta sanadkiisii labaad sanadkii horena sidaas leeg baanu qabanay markaa sanadkii hore waxa uu ahaa sanadadii hore waxaa la qaban jiray isagoo one day oo shir keliya laakiin maadaama qurbo joog aanu one day ku filayn waxaanu ka dhignay waanaanu ballaarinay oo toddobaad diaspora week baa laga dhigay sanadkii hore sanadkana waxaa ku cusub lagu soo kordhiyay in gobollada lagu soo kordhiyo oo labadan cisho Hargeysa markay maanta inaga dhamaadeen Britol wuxuu ka dhici doonaa magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal khamiistana wuxuu ka dhici doonaa xarunta gobolka Togdheer ee Burco kadib waxaa lagu soo gabagabayn doonaa magaalada Hargeysa runtii annaga wasaarad ahaan iyo waax ahaan wax weyn buu nooga dhigay hadaf weyn oo gaarnay buu nooga dhigan yahay runtii inta badan waxa u muuqata shirku inuu xoog saarayay in qurbo joogtu ay maalgashi sameeyaan oo wasaaradii kala duwanaa ee dalka ayaa jooga marka qaybta maalgashiga qurbo joogtu laftooduna waa cabashay iibinayeen oo ilaa wasaaradda meel qaar gaari karin marka arintaas ay idinku aragtaan maxaad ka qaban kartaan aad baad u mahadsantahay waa runta hal ku dhiga sanadkan shirka waxa uu ahaaba horumarinta magaalooyinka iyo maalgashiga qurbo joogga marka qurbo jooggi maadaama wadankii lacag la yimaadaan in lacagtii magaranaysaa ay fursadihii wadanka jiray loo soo bandhigo dawladii hoose ay magaranaysaa waxay hayaan ama dhul ha ahaado ama cashuur dhaaf ha ahaado ama qofku business sameeyo kale in cashuur dhaaf siiyaan oo kale ha ahaato ama dhul inay siiyaan oo kale ha noqoto any kind lagu fududeyn karo inay lacagtan ay sitaan qurbo jooggu in magaalooyinkeena iyo degmooyinkeena lagu celiyo ayuu xoogga lagu saarayay sidoo kale qurbo jooggu waxaan sanadkan waaxda qurbo jooggu waxay sanadka shaacisay aasaastay website loogu talagalay qurbo jooggu inay xogta ku helaan one stop shop qof isagoo wadankiisii u deganaa jooga ama tusaale ahaan UK ama USA isagoo joogo kale wuxuu access u leeyahay inuu ogaado dhammaan maxaa la raadayay macluumaadka institutionskana dawladda ee bixiya adeega tusaale ahaan wasaaradda arrimaha gudaha kale qof isagoo wadankiisii jooga wuxuu access u leeyahay inuu website-ka waaxda qurbo joogga soo galo oo kadib wasaaraddii magaranaysaa arrimaha gudaha qaybteedii ka sii dhex galo kadib qaybtii liisan waxaan u jeedaa ee dhalashada uu sii dhex galo ilmihiisii halkaas uga soo dalbi karaa kaarkii dhalashada form buu soo buuxbuuxinayaa kadib wasaaradda arrimaha guduhu markaas ay aqbalaysaa ganacsigu waa sidaas leeg maxaa la yidhahdaa immigrationka waxay uga baahdaan waa sidaas leeg dowladaha hoose ee magaalooyinka gobollada Somaliland waa sidaas leeg runtii waxay qayb ka tahay in cabashada qurbo joogga ee magaranaysa xafiisyada dawladda inaanay access badan u lahayn adeegga ku xidhnaa inaanu fududeyno ayuun bay runtii qayb weyn ka tahay waxaanan aaminsanahay inay magaranaysa door muuqda ka qaadan doonto wax badanna fududeyn doonto marka laga tago maxamed Khalid marka laga tago in ay website ka soo galaan oo ay xogta ka helaan qurbo joogtu si practical ama si toos ah ay u yimaadaan hay'adaha xarumaha dawladda maxaa idinku fududeyn uga qayb qaadanaysaa waxaan arkay iyadoo leeyahay wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ee qurbo joogta ka cabanaya leeyihiin gelitaankooda inaan ka xiriir la sameeyno ayaa caqabad nagu ah idinku taa maxaad uga qabateen ilaa imka runtii wax weyn baa taa laga qabtay waxaanu sanadkii dhawaad qaadanay istaraatiijiyad ah in institution ama dawladeedoo kasta ama xarun dawladeedoo kasta inuu yeesho qof diasporada u gaar ah oo tusaale ahaan maayirada dalkaanu ka bilownay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariim Axmed wuxuu magacaabay wuxuu sameeyay xafiis dhan oo u gaara xafiiska qurbo joogga oo taladeedii iyo soo jeedintii waaxda qurbo joogga maamul ahaan naga timi anaga runtii wax badan uu fududeeyay dawladda hoose Burco sidaas leeg dawladda hoose Boorame sidaas leeg imka way leedahay maayirka Berbera wuxuu ballan qaaday isaguna inuu magaranaysaa ay hadda sameyn doono runtii wuxuu fududeeyay in qurbo jooggu si dhow ay madaxdii sare u gaari karaan macluumaadkooda iyo servicekii waxay u baahan yihiin oo dhan si yar oo dhow oo one stop shop loogu dhammayn karo runtii xarumaha dawladdu dhammaantood qurbo jooggu way u furan yihiin oo waa qurbo jooggu waa muwaadiniin kuwa reer Somaliland ee localka la mid ah siday kuwaas access ugu leeyihiin inay galaan ay service adeeg walba helaan ayuun bay kuwana u leeyihiin runtii tanina waa fududeyn in fakal loo helo qof fududeeya hawshii oo qurbo joog toos ugu tago warwareeg dheer aanu gelin oo waqtiga kalumiya maxaad fariin ugu dambeyntii u haysaa qurbo joogta laftooda iyo dadka waddanka jooga ama ha noqdaan muwaadiniin ama ha noqdaan dadka xilka haya ama hay'adaha dawladda fariimada u dir sameeyay
waad mahadsan tahay fariintan u dirayaa qurbajooga jamhuuriyadda Soomaaliya waxa weeyaan horta waxaan uga mahad celinayaa sida quruxda badan ay uga soo qayb galeen more than 400 oo qof inay ka soo qayb galaan shirweynaha toddobaadka qurbajooga ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya furay waxaan leeyahay waddankiina hooyo ku soo dhawaada waddanka maalgashada goboladiisa iyo degmooyinkiisa iyo meel kasta maalgeliya gacmo furan ku soo dhawaada baan leeyahay xarumaha dawladda iyo magaranaysaa dawladdan waxaan leeyahay qurbajoogu waa maalgashi iyo lacag bay sidaan institutionska dawladda dhammaan waxaan ka codsanaya inay u fududeeyaan serviceka wixii ay u baahnaa yihiin dhammaantood si gaarana iyaga oo dhow loola shaqeeyo maadaama qofku waddanka intuu joogayaba ay yar tahay inaanu warwareeg waqtiga kaga lumin markiiba hawlihiisa loo dhameeyo aad baad u mahadsantay Khaalid.